رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أنا قاعد سلطان مصطفى الشيخ إبراهيم معه سلطان سمود حمدين شركة إيران شرايد لو كسر سيء هاي إنه أقويها كي أولياشي وحجرتي سياسيين تي حافظة محمد موجي محمود هيبي كسر تيدي وحنا كجاه الله ينارهم تي باهيه حافظة odayaashii waaweynaa ee horumarka xaafadda ka shaqaynayay oo bariyahanba xidhnaa kadib markii ay ka hadleen in xaafaddii ay dawladdii hoose waxba u qaban lahayn runtii waa ayaan daro qof cabanaya halkii cabashadiisa loo tixgelin lahaa ee la odhan lahaa bal waxaan halala soo eego in isagii xadhig lagu abaalmariyo runtii taas waa ayaan daro weeyaan. waxaan ugu baaqanaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha arrinka inay ka daba tagaan oo ay dib u eegaan dadkani waxan ay dalbanayaan ma wax ay dantooda ku jirtaa mise waxay ku dilayaan qaranka Soomaaliland. runtii waxaan leeyahay annagoo ah odayaashii dhaqanka wax nabadgelyada liddi ku ah odayaashaas kuma dhaqmahayn laakiin wax dantooda ah oo danta xaafadda ah oo danta qaranka ah ayay ka hadlayeen. waxay Soomaalidu tiraahdaa dheriga karka maxaa ka keena kulaylka ka keena raggan inay maamul sameeyaan waxa ka keenay kadib markii cabashadoodii loo tixgelin waayay. dhammaan waynu wada daawanay media waynu ka daawanay intaasoo boqoloo jeer baan u tagnay midhahan maayirka iyo maayirka xigeenka iyo golaha deegaanka markii cabashadoodii loo tixgelin waayay kulaylkii ayaa ka keenay inay yidhaahdaan maayir baanu samaysanaynaa. runtii may ahayn inay ficilkaa sameeyaan anigu kumaanu taageersaneen mana qurux badna laakiin sartu halkay ka qurintay waxa weeye dadkii ay wax ka doonayeen ay cabashadooda ula yimaadeen markii ay u tixgelin waayeen ee ayaguna ay tan la yimaadeen. marka waxaan ugu baaqanaa dhammaan xukuumadda Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ragga inuu iska soo daayo maadaama dembiga waxaa ku kalifay tahay dawladda hoose. dawladda hoosena waxaan leenahay maayir waddanka adiga ka maayirkani ma jiro laakiin mas-uuliyaddaadii inaad ka soo baxdo ayaa la rabaa ilaa iyo haddana kaama hayno. runtii waxaan leeyahay golaha deegaanka ee ka soo jeeda xaafadda maxamuud habiye maxamed mooge waar dadkani waa dadkii idin doortay waxay idinka doonayaanna waa waxay idin doorteen idintoole markaad doonaysaan in la idin doorto waa dadka codka ka doonayseen. marka waxaan leeyahay golaha deegaanka ee ka soo jeeda xaafadda maxamuud habiye maxamed moogana waar dadkan xaafaddiina wax u qabta dadka kale xaafadooda wax u qabtaan. maanta shirkayay jirayd wuxuu gaarayay sidaas sultaan mustafa uu sheegay dhacdadii ka dhacday degmada maxamed mooge ay ku dhawaaqeen koox ka tirsan deegaankaas maamul hoosaad maayir iyo ku-xigeen iyo sekretari. runtii sharciyan dalku wuxuu leeyahay golo deegaan caasimadana ka jira oo maayir ku-xigeen ah iyo dee maamulkii kaleba uu jiro. sidoo runtaa raggaasuna waxay rag mas-uuliyiintii ugu mudnaa ama aqoon lahaa ama loo waday mashaariicda horumarinta deegaankaas ka socday oo dhan sida bariishka isku xiray maxamed mooge iyo ina digaale bariishka weyne maxamed haybi maxamed mooge isku xira waa dad qaaraan ururinayay dadka kiciya dawladdana gacan siinayay una ololeynayay in la sameeyo jidka u dhexeeya waddadaas soo gelaysa xaafadda maxamed haybi maxamed mooge isku xiraysa iyo taad cumar digaale iyo isku xiraysa maxamed mooge. inta ugu badan ee dadkaas ka shaqaynayaan ku ogeyn taasi mid waa guddoomiye iskaashtada mid waa suldaan mid waa aqoonyahan nin kale rag isku xiran bay ahaayeen oo runtii la aaminsan yahay tii waxay ugu noqonayeen dawladda hoose iyo maamulka caasimadda. in fact marka si daacada ama anagu aan gudaha iyaga ay sooreysana ama aan ka daba tagnay arrintaa wax siyaasadda waxaan ku dambeeyay oo kale ku dhex jiray ma jirin laakiin waa caadifad ka dhalatay wada shaqayn la'aan iyo gacansiin la'aan ay ka tirsadeen maamulka dawladda hoose. sidaa awgeed annagoo sidana milgahaya magaca dadkaasu ay leeyihiin aanu sheegi karin qarankooda iyo dadkooda wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka codsanayaa u soo jeedinaa ma jiro cid siyaasiya oo cid arrintaa baagarayso waa wax ka dhalatay caadifadda wada shaqayn la'aanta
waxaan soo jeedinayaa in dadka horta xorriyadooda loo soo celiyo laba in baaritaan lagu sameeyo waa maxay waxa sababay waxa jira dad badan oo ka tirsan xukuumadda lix ku dhex jira oo sababay inay shaqo xumidooda ama maamul xumidooda ay keentay inay sababto calo dadweynaha iyo isku kiciyo dowladda waxaan se dhammaan ka raaligelina qarankana haddii khalad sharciyad laga tirsano sharci khalad haddii uu jiro in sideeda lagu saxo laakiin waxaan idin caddaynaa dadkaas inay inoo sakeeyeen aan shaqolayn shirka jaraa'id waxaan u qabanay annagoo ah aqoon-yahankii haldoorkii qabqaashii degmada maxamuud habiye maxamed mooge inaanu ka hadalno odayaasha iyo aqoon-yahanka miidda ah ee ayaamihii ugu dambeeyey jeelka ku jiray maantana maxkamadda la hor keenay ee dib 7 cisho rumaan lagu celiyey ma jirto sabab ka dambeysay ama siyaasiyiin ka dambeysay oo arrinta inay maayir iyo maarikuxeen ku dhawaaqaan sabab u ahay kaliya laakiin markii ay nimankan oo ah nimankii horumarka degmooyinka bariishka maxamed mooga sameeyey ee wadooyinka muday oo ah runtii nimanka xaafadda miidda u ahay markii ay dawladii hoose ka weeyeen wax wada shaqeeyna markii ay dawladii hoose ka weeyeen wax weeyaan ay si ay uga shaqeeyaan markii uu maayirka caasimada Hargeysa ku soo istaagay ee waliba hadalada aflagaadaa uu raaciyay taasaa sababtay inay maayir iyo maarikuxeen ku dhawaaqaan sabab ka dambeysay ma jirto dawladda waxaan ugu baaqaynaa nimankaas haldoorkiya in loo soo celiyo xorriyadoodii oo aan waliba lagu daynin 7 cisho rumaanka intaas runtii dawladda ka codsana maar saltalkan waxaan leenahay mudana maayir caasimada maayir ah oo jama soo dhaafo moolen haddaan nahay aqoon-yahankii haldoorkii labeentii cududii maskaxdii rajadii degmada maxamed mooge iyo maxamuud haybe waxaan ka xunnahay xadhigga qaawan ee tacadiga ah ee lagula kacay madax dhaqameedka odayaasha ah ee ka gelgeshay baahiyaha kala gedisan ee ku xeeran deegaanka ka soo jeedaan waxaynu ogsoonahay degmada maxamed mooge iyo maxamuud haybe in 8 degmo marka miisaanka la saaro inay yihiin degmooyinka dakhliga ugu faraha badan leh uu ka soo xaraaro 8 degmo maadaama wasiiladii xooluhu ay ku taalo madaarkii Soomaaliland ku yaallo cashuurta u faraha badan leh waxay ka soo xarootaa degmada maxamed mooge iyo maxamuud haybe 400 qof baa ka soo toosay degmada maxamed mooge iyo maxamuud haybe ma haystaan hal police station bay leeyihiin hal MCH bay leeyihiin waddo xuma haysa dhalinyartooda iyagoo bilaacamalay taagayeen waddooyinka taasina waa nuqsaan runtii waxaan tacsi uga dirayaa shacabka u dhaqan degmada maxamed mooge iyo maxamuud haybe xildhibaanadii ay soo doorteen oo runtii gabay oo ilaa iyo iminka meel aan ku sheegno aanan garanayn waxaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha gudaha aan ugu baaqayaa in madax dhaqameedka ka dhidhiyay daldaloolada iyo dib u dhaca ku yimid deegaanka ka soo jeedaan in muxuu ahaayay ay ka fiirsadaan oo ay ka taxadiraan una kuurgalaan arrinkaa wixii keenay haddii kale waxaa ka iman kara runtii dhib hor leh oo qarankan u horseedi karta muxuu ahaayay muran iyo khilaaf ba'an